ما سامح ده ولالكين نينا ما كل ما يدين كجرا إلهي درتي نينا ما كل سامحي كرينا دو جرا هالشيء ولالكين واس أحمد محمد إبراهيم وحول شيء سنة كي كل سجال بقول كونتني سجال كي مركو روح يقرن كل سجال بقول كونتني سديد مسألة خلافية ولا صح كل سجال بقول كونتني سجال كي بود شيء وحنا شيء حليمة إبراهيم يوسف وحول شيء أو وحوفك كجت جاي شنقب دود إياه صدق وين كون سجال بقول تضبط تانية تضبط دي سيدا تقانين تاريخ دري يوروب أحمد محمد إبراهيم وكبير جواد جونا دون كصومالي قلبيت جاس أحمد جوري ورك شنات وحكم من نقضي كورنتا كوبات كواحدة صدحاتنا تليه ونقبو كنقضي تليه كواحد بو كنقضي صح الله نحرس ولال كان أحمد محمد إبراهيم وحوها ننجيسيا وأد قالمي والله الجمي قال هذا جميسي إنه وصل دو شيء صدحية طبعاً كجارية الرئيس إلا على إثيوبيا دي هراء سانك إسكو هيجي عيدا كي جوبي هورين كم دوّتي صح أحمد محمد إبراهيم تاريخه الله وحصوص مركا عن كشك إنه وحوها مركي كون سجال بقول سجاشن يكودي isbedel ku dhacayay ee Soomaaliya ka soo baxnay annagoo magaaladan dhandhama oo saddex guri ah soo degnay waxa dhacday in niman jaaral la yiraahdo ama Oromo Islamic Liberation Front IFLO ay qaadeen nin walaalkeen oo Amiin Habib Saciid la yiraahdo Amiin Dhuub waxa lagu dilay meel noo jirta hadda dhowr kiiloomitir aad yaan uga xanuunsanay xanuunkaas dad tira kooban oo hadda in badanna ay dhimatay inna ay nooshahay baan iskaga nimid waxaan go'aansanay inaan la dagaalanno ka xoreyno dadka dhibka ku haya ee aanu dhalanin ee duleystay ee guumeystay Amiin waa kaan hadda xabaashiisa dadka tusaya waa ninka koobaad ee uu naga dilo ururka IFLO ama Oromo Islamic Liberation Front kadib labaan isku qaybinay qaybaan aniga iyo Casoowe iyo Mukhtaar Maxamed aan hogaaminayno jahadana naloo xil saaray qayb isaga iyo Amiin Nuur iyo ay hogaaminayaana waxa loo diray xaggaas iyo Ibro Muuse shirkii koobaad ee lagu qabtay Ibro Muuse oo shirkii markii go'aankii la qaatay inaan la dagaalano nimankiisa looga dareeray shannin isagoo shakhsigii koobaad ee ciidanka shiftada ee dadkeena gumaada iska hor yimaadeen ee xabadii ugu horeeyay ka qeejiyay kana dila cadawga nin ayuu noqday kadib aabii Allah una xisay Maxamed Ibraahim baa noolaa oo beesha kidir ugaas u ahaa duq u ahaa odaygii markuu dhintay waxa loo dhiibay xilkii uu odaygu lahaa ugaas Axmed Maxamed Ibraahim ee muddo soo jiray maanta waa 62 jir shalay bayna tiisi ahaatay naxariis waasic Allah ka waraabsho waxa fariin iyo taariikhdaas iga dambeysay in walaalaheen beesha kidir ay codsi ii keeneen maadaama aan duqoodii aan ahay oo yiraahdeen si degdeg ah maadaama aanan hadda ka shaqaynin markuu roobku noo da'o oo dadku isku soo noqdo ayaanu beel ahaan intaan tashanno bedelkii ugaaska aan idinku yeedhaynaa si aad noogu caleemad saartiin marka sidaas darteed walaalaheen fariinta noo gaarsiin bay yiraahdeen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh naxariis waasic Allah ka waraabiyo naxariis waasic Allah ka waraabiyo dambigiisa hore Allah dhaafo kutubtiisa midigta Allah ka siiyo samir iimaan Allah naga wada